صحابي السلام عليكم. soo dhawaada maanta waxaan sameynaynaa cuntadan rootiga sano maasha Allah oo qurux badan u softiga oo naacimka ah ayaan sameynaynaa waana xaaga basiida waa easy aad buu qurux badan yahay aad buu u bisil yahay maasha Allah tabaarakallah calooshiisa xabad qayrin ma lahan waana healthy marka ku soo dhawaada insha Allah sidaan u sameeyay waxaan ka sameeyay insha Allah daawasho waana saxaabay waa ka warootiga quruxda badan macaanka casariye waa ku tuuranaysa isagoo daahira shahir baa lagu shubayaa ku cunaysa ama qaxwo ama casarkii subaxii hadii quraac la sameysan karo qofkii waqti hayaan waqti ma haayo qofkii waqti ay ku tuuran karaa marka insha Allah ani markaan subaxii baxay waxaan rabaa quraacayga markaan shiitayna 3 xabba 2 xabba isna hore uga sii qaato ayaan rabaa insha Allah waa kaas aad baan islaamaya insha Allah markaas maxaa ku soo dhawaada maastada wixii aan ka sameeynaysan u sameeynaysan waa sadaawanina insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada jannakeena maanta saxaabi waxaan sameysanaynaa rooti snack waxaan u baahanahay halkan baaquli baan ku haystaa bismillaahir rahmaanir rahiim. soo dhawaada saxaabi bismillaah salaatu wa salaam ala xabiibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ilaa xalila maanta xabiib baan leeyahay codku ugu bedelan yahay saxaabalka waxaad arkaysiin waa baaquli waxa ku jira oo darkaysiin wax yar oo hayl shiidana weeyaan insha Allah waxaan haystaa waa caano powder waxaan haystaa waa coconut oil oo intaas ah waxaan haystaa khamiirisa aan sii dhigtay oo sii waxaystay khamiirisa waxaan ku sii waxaystay khamiirisa isticmaali waata khamiirsada qoyan biyaha markaa ku sii qastay insha Allah waxaan haystaa half milk oo caanaha freshka ah waxaan haystaa 2 xabbo oo kun insha Allah waxaan haystaa burkii oo kilo ah oo nus kilo aan isticmaali doono kaas aan ku qiyaasan doona insha Allah kaabaan ku qiyaasan doona marka saxaabi soo dhawaada insha Allah saan isugu dardarayo la socdo wanaagsan marka ila socod saan isugu dardarayo hadii la xaqiro waxaan isticmaalaynaa marka ugu horeysa wuxuu milix ah bismillaah milixda cusubta oo ifurmi laadahay intaas oo cusbaan isticmaalaya laana rootiga waxaan ku dubayaa waa saxni weyn ma ka sameeynaa insha Allah duula qadaro waxaan isticmaalayaa waa fixisadii milixda horta isku waxayna fixisada waxaan ku waxaystay bisadaas insha Allah marka ila socdo wanaagsan asxaabi ila socdo insha Allah wad ka faa'iideysanaysiin insha Allah saxaabi soo dhawaada saxaabta cusbaan soo dhaweynaya halka waxa ay yaala waa 2 malqacad oo maxaa la leeyahay caanaha nidooga ah ama caanaha powderka ah hasku waxaanina waa fixisadii iyo caanihii powderka ahaa iyo milixdii yaan isku waxaynana insha Allah waxaan ku daray inta oo sonkor ah asfo inay waxaan runaa isfal galaan mar walba wax walba isku waxayna insha Allah waxaan ku darayaa coconut oil bismillaah waxaan isticmaalay xabadka ukun ah 2 xabbo ukun ah isticmaalay kala socdana sana saxaabi insha Allah dad video ka like subscribe share familkii fansaga la wadaag insha Allah
markaa saxaabey insha allah like iyo subscribe-ka nagu caawiya insha allah waa free lacag la-aan weeyaan maaha lacag insha allah waa horumarka walaalihiin marka qof wal oo youtube-ka aad maxaan dhada ku jiro oo Soomaaliya ama qofku dooni ha noqdo insha allah taas waa codsi ka raali noqda saxaabi halkan waxaa isla falgeliyo kuntii oo coconut mil oilkii caaniyo butterka afixisadii iyo milixdii iyo sonkortii waa ujeedin insha allah saxaabi halkan waxaan ku haystaa waxa weeyaan inaad la socotiin baan jeclahay halkan waxaan ku haystaa waxa weeyaan waa flaxseed weeyaan marka ma badna flaxseedku waa flaxseed weeyaan flaxseedkan waxaan jeclahay yacni burka cad iyaan intaas iyaan jeclaynayna waxa aan sameynay cad yahay waxaan ku isticmaalinaa waa intaas nus koob weeyaan oo flaxseed ah marka rootiga waxaan rabaa in rooti jilicsan oo macaan noqdo oo snack ah oo casarkii iyo subaxii la isku cuni karo kolba intii waqti la helo insha Allah taala waxaan haystaa waa nus koob maaha koobkii oo laba laga dhigay oo bur baan ku daraya insha Allah inta hore saasaan ku waxayn laakiin hadhow waxaan rabaa gacanteeda la gali doona hadhow toole asxaabi soo dhawaada insha Allah waa casariye iyo subax iyo xilliga qofku baxaya mashaqo u socdo isneeg uu ka dhigan karaa ilaa inta ay noqonayso oo jileec caadi ah fiican ay noqonayso burka kolba waan ku biirsana hadda laba nus koob iyaan ku daray waa hal galaas la isla tahay marka waan ku biirin doona insha Allah burku wuxuu rabaa inuu waxaan rabaa burku inuu jilicsanaado insha Allah oo jilicsanaado insha Allah marka baalkan ku sameynayna waa bahal weyn waxaan ku daray koob kaleete oo bur ah adoo daqiiqda waxaan iska isticmaalayaa nus kiilo iska dheh nus kiilo baan iska isticmaalayaa kilo baan iska isticmaalaya insha Allah burka haddii waxaan rabaa gacanta inaan gacanteeda la galo gacanteeda ku xasho insha Allah ka saxaabay waan soo xashayaa markaan saa u soo xasho waniga inta wad ila wadaagteen fiidiyoga dheer baan diidanahay markaan saa u soo xasho waan isku soo noqonina insha Allah anoo haddana waxaan ku xashi doonaa badharka waa kana markaan soo xasho badharkan ku xashiyaa marka badharkiina waa kan caanahana waan ku xashayaa hadduu iga jilco marka ay la socod wanaagsan markaan waan isku soo noqonaynaa sidii markaan badharka ku xashayo insha Allah isku soo noqonaynaa marka intaasaan rabaa inaan aragtiin sidaan kow isugu dardarayo ama bilowga rootigu marka dhamaadkana dee insha Allah waan wadaagi doonaa iyo sida kusoo baxo rooti soft aan ka dhigi doona insha Allah asalaamu calaykum asxaabteeda qaaliga ah soo dhawaada asxaabey halkan waxaan ku shubtay burka waxaan ku shubtay waxaan rabaa inaan butterka rootiga ku jilciyo oo nduka halka aan dhigtoon ku xasho markaas intii kale waan soo xashay waa inaad markaad rooti aad rabtid inuu oo macaanaado ama oo jilco waa inaad maxaan la yiraahdaa waa inaad aad u xash waa inaad aad soo xashtaa halkaas aan dhigtay asxaabey ila socda insha Allah garaali noqda badharkii waa kana asxaabey badharkaas wuxuu noqonayaa ilaa 200 ilaa 180 mg oo badharkan ku xashaya marka ha jilco badharkaas ayaan ku xashaya badharku hadda wuxuu ka dhigaa rootiga soft buu ka dhigayaa banaanka xitaa hoos soo baxo wad xashaysaa si fiican aad u xashaysaa
waxaan ku caseeyay rootiga waxa weeyaan flexidkii baan ku caseeyay laakiin waan jilcinayaa oo jilcayaa subagaas iyo badarkaas aan dhex gelinayaa qadarkiisina insha Allah wuxuu noqonaa rooti aad u macaan oo soft ah oo haddana healthy ah waxaan u gashtay waxaan diidanahay inay gacanteeda ku dhagdhagin laakiin tan uu ka go'aa burku ilama asaa u kala jiido burta soft ka dhigo burku gacanteeda sida laastiga saa u jiidmo ka saar xashitaanka ka dayn maayo fiican u xash dhaw wuxuu noqonayaa ma sha Allah haduu ilaahay qadaro hal saaca ka bacdi 1 hour baan isku soo noqonaynaa markaan faxo oo khamiiristiis aan galiyo waan waxeeyo yaan jarjari furunkaan galin doonaa kumbaan dusha ka marinaysaa markaad dubaysid macaan isagoo ku soo baxay oo soft oo rooti jilicsan ah 2 jeer baa la khamiiriyaa insha Allah kan waa soo soconaynaa insha Allah wuxuu ku dhamaanayaa isoo ku bilaabay insha Allah waan healthy waxaan ugu daray flexidka waa sida flexidku wuxuu u fiican yahay saxaabeen amrba u isticmaalaa aan waxaad niiga sheegay intaan rootiga xashanayo in flexidku calooshu dhaqaajiya marka burka cadna waxa qofku hadii bur aan la deynayn in inta badan flexid iskaga darsado oo rootiga la caseeyo ayaa fiican iyo ama dooshaha markaad sameysanayso ana wuxuu leeyahay flexidku calooshu jilciyaa qofka in caloosha wixii lagu daro ma taagmaysa calooshu saxaabay marka waa sidaasaan darteed insha Allah ila oo gacantaada saa u kala jiidido soft noqdo xashitaanka ka daynin insha Allah haduu la yiraahdo ka dayn xashitaanka marka saxaabay in waa kan baalkii aan ku xashay waa kan waxaan soo marsanayaa saliid yar saliid baan u marinayaa saliid baan u marsay marka kana baaquligan aan ku ridayaa insha Allah
meesha waan nadiifiyey maaha wasakh maaha meeshu waan nadiifiyey aad baan nadiifiyey oo de wax la cunay meel lagu sameeyay inaad aad loo nadiifiyaa fiican marka asxaabi markaysiin wakaas waxaan gelinayaa meeshiisa bacdiisaan ku xidhayaa insha Allah hadhow waan isku soo noqonaynaa marka aan dubaayo aan sameeynayo isku soo noqonaynaa insha Allah marka waa 1 hour yaan dib isugu soo noqonaynaa ama 40 daqiiqo insha Allah haddii la yiraahdo markuu inta la kala soo faxo marka waan isku soo noqonaa saxaabteeda qaaliga ah insha Allah badarkii weelkii saxniga lahaa badarkii dusha ka yar marinaya saas aan u dhigeynaa insha Allah waxaan noqon doonaa rooti macaan soft oo jilicsan aan ka dhigaa oo saa u kala jiidmaya insha Allah insha Allah isku soo noqonaynaa markaas waan dhigayaa insha Allah rootiga markaan dhigo hal saac ka bacdi aan isku soo noqonaynaa haddii Ilaahay qadar hal saac ka bacdi aan isku soo noqonaynaa insha Allah markaas saxaabi soo dhawaada wixii aan kala faa'iideysanayna khayr insha Allah ka faa'iideysta inaguna subscribe-ka leega fadlan marka aan isku soo noqonaa saxaabi dhamaadka fiidiyoga khayr baan rajeynaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي قالقة سو دوادا وروتيجس أنا حشيي وأنا أروحي كدم بيان سوي عليه وكنا ما شاء الله آد بوصفي عنو صوفحي ماشي أنا بركو ضاد صنايا وجي دينا صحابي بركان كو ضاد صنايا بركا مسكوب بديناي انت أصلا سمين إن شاء الله مركز وان لصوبحا إن شاء الله هنكسارا نيفتا أما فلتان كون سويلنا ما شاء الله ما شاء الله قروح ونقضي وحان سمينا يا ساسان لهي ساس مركان إلى هذا لبا وكلا جريدونا إن شاء الله لبا وكلا قوينا يا وإنه دحدا أبورمين أو إسلام كذا دح إياه أنت قدام بس إنه إسلام كذا كلا السعدة ما شاء الله جدا إنه دحدا أبورنا هذا أنت كلنا أو كدودوبنا هذا صحابي دحنا نكو كلا جرايا ان شاء الله وان كلا قيبين لبا نصي كلا قيبين ان شاء الله intaasaan ka dhiga axbaabe intaasaan ka dhigayaa insha Allah damacaygo dhanba ma muuqda intaasaan ka dhiga axbaabe waan sidoo leekaysiinayaa 2 xabo 3 xabo ayaan tuusinayaa insha Allah waa kan bahalkan ku gelinayaa furunka markaan hadda wada taxana haddana waxaan dib u dhigi doonaa 20 daqiiqo ayaan dib u dhigi doonaa insha Allah haddana dib inuu soo faxo markuu 20 daqiiqo dib u soo faxana waxaan marinayaa xabad ukun ah ukunta ayaan dusha ka marinayaa marka waxa mariyana waxa u diyaarsan furunkiisa horta waxa marsanay wax yar noqon saliid oo meel dheer bahalka gunta insha Allah waan ku safaaya maraan ku safo in 3 xabo 2 xabo inaga tusiyo insha Allah ayaa isku soo noqonaynaa asxaabay marka la socda insha Allah hadhoona waan tusana markaan marinayo insha Allah video kale badanayo mooyaan kale ma jirto saxaabay intaasaan ka dhigayaa
saasaan u saarayaa. Markaa waan soo saaraa 4 xabo 3 xabaan tusinayaa. markaan 4 xabo 3 xabaan tusiyo inta kale insha Allah isku soo noqonayna haddii Ilaahay yiraahdo. وجدنا أحبابي حبست حباني بدرايا سادي شو بحسيتين إن شاء الله. أوجدنا أحبابي 6 ويان وان صودا ما يسترايا إن شاء الله مركان صودا ما يسترو أيان سوسو نقنينا إن شاء الله. صحابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روتي ما شاء الله واك صدنوك الصباحي ما شاء الله قروح موجودين على وشيسه ما شاء الله. صدق بسرية هاي وقروح بدني هاي صافت وياهاي بسكت موجودين ما شاء الله تبارك الله. وانا هلتي ساسو كصباحي آد بو قروح بدني إن شاء الله وكاس ما شاء الله. صحابي وهلتي وجلاء وسناك عدوا معايا هيك كصحابي إن شاء الله. بس واحد بناك سن ساسو صباح روتيجي قروح ساسو صباحي عدوا معايا هاي جلاء هوستي سجدوا بسلي هاي عسانك أركيسيني وبالكي ويان أخو دري دعمتي سبحان الله إن بعد معها ما شاء الله. وعصرية وفضيها وانا هلتي صبحي مركي المها سيبحين موقفك الشقة مركو سيبحين لغال بسيقة دنايا اسناك في عم بقولنا قنايا مركا ما شاء الله تبارك الله. وكاس إن شاء الله هذا الفيديو كيشين بليز سبسكرايب ليك عند الشير إن شاء الله. فملكا يا صحابتي أنا أباهن الله الشير قراء إني أنا سمس عبقسية دمانتين aad baan idin salaamaya saxaabay. next video ka qurux badan ta kulmi doono insha Allah next video.